ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa howlgal culus ku qaaday meel ay isku aruursanayeen maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo meelo kala duwan laga keenay waxaana loo abaabulayay qaadida weeraro ay ku dhibaateen rabeen bulshada Soomaaliyeed. Hay'adaha ammaanka Soomaaliya oo garab ka helayay shacabka ayaa helay xogtan ku aadan is aruursiga maleeshiyaadkan khawaarijta. Intaas kadib waxa ay qaadeen howlgal aad loo qorsheeyay lagana digtoonaa inay dhibaato ka soo gaarto bulshada. halka isku aruursanayeen maleeshiyaadkan ka tirsan khawaarijta ayaa ah meel banaanka ka ah degmada Owdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose. Howlgalkii ay ciidamada ku qaadeen deegaankan ay ku sugnaayeen khawaarijta waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray argagixisadii dhagarta maleegayay. maleeshiyaadka Al-Shabaab ee lagu qaaday howlgalka afjarka ah waxaa hogaaminayay horjooga magaciisa lagu sheegay Salmaan Dheere ka oo ku xigeen u ah horjoogaha Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Shabeellada Hoose oo magacyo badan leh sida Macalin Xaashi, Tabliiq, Cabdikariin inta oo magacyo wuxuu ula baxay banaysiga dhiigga shacabka Soomaaliyeed. horjooga Salmaan Dheere oo bartilmaameedka howlgalku u ahaa xog aan helnay waxa ay sheegaysaa inuu soo gaaray dhaawac culus waxaana la tilmaamayaa in maleeshiyaadkii qaaday dhaawiciisa ay ku hayaan meel aan isbitaal lahayn. ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa muddooyinkan bilaabay howlgallo lagu baqnogoynayo khawaarijta Al-Shabaab kuwaas oo ka dhuumanaya cadaaladda iyo gacanta ciidanka qalabka sida.